Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaanan u gudagelin maalinta aan ku tilmaamay inaysan cidina dhalan, cidina aysan dhiman iyo fasiraadeeda, ayaa waxaan marka hore taabanayaa arrin xiriir la leh oo ahba arrinta ka dambaysa inay sidaasi dhacdo. Arrintaas ayaa ah dhulka aan ku noolnahay iyo wareegiisa. Barnaamijka ayaa maanta waxaan u dhigayaa su'aalo aan isri dadku way isweydiin karaan iyo jawaabahooda. Su'aasha u horreysa oo dadka maskaxdooda ku soo dhici karta ayaa waxa ay tahay marka ay maqlaan dhulka aan ku noolnahay ayaa soconaya. Sidee ayay u dhici kartaa? Ma dhulkan aan ku dul taagannahay ayaa dhaqdhaqaaqaya? Hadday sidaasi tahay, maxaan anigu u dareemi waayay socodkiisa ilaa anaaba ku dul taagane? Intaanan su'aashaas ka jawaabin, tusaale yar ayaan soo qaadanayaa amaba su'aal xiriir la leh ayaan uga jawaabayaa. Markii aad gaari raacdid, goorma ayaad gaariga dhaqdhaqaaqiisa dareentaa? Inta badan gaariga marka u horreysa ee uu dhaqdhaqaaqayo oo uu socodkiisa bilaabayo ama marka uu istaagi rabo ayaa aad loo dareemaa dhaqdhaqaaqiisa. Laakiin ka soo qaad haddii uu gaarigaasi ku soconayo 100 kiiloomitir halkii saac oo uusan ka dhaqaaqin halkaas, markaas saameyn weyn kuguma leh gaarigu. Laakiin markii uu socodkiisa gaabiyo oo uu bareeg qabto, isla markiiba waad dareemaysaa. Waxaa sidaasi la mid ah diyaaradaha, marka la dareemo dhaqdhaqaaqooda waa marka ay garoonka ka kacayso oo xawaaraheedu dheeraynayo amaba ay soo degayso oo rabto inay caga dhigato oo ay istaagto. Laakiin markay hawada ku jirto oo diyaaradaha jumbo jetka qiyaas ahaan ay ku soconayaan 800 oo kiiloomitir halkii saac, haddaad ku dhex jirtid ma dareemaysid inay xawaarahaasi ku soconayso. Haddii aad indhaha iyo dhagaha iska dabooshidna waxaad u malaynaysaa inaadan dhaqaaqayn. Arrintaas macnaheedu waxa weeye marka kaliya ee aad dareemi kartid inay wax soconayaan waa marka ay intay ku soconayaan beddelaan oo amaba ay dheeraynayaan amaba ay gaabinayaan. Laakiin haddii aysan xawaaraha ay ku soconayeen aysan beddelin, ma dareemi kartid inay dhaqdhaqaaqayaan. Sidaasi waxaa la mid ah marka aad diyaaradda ku dhex jirtid, shaaxa si caadi ah baad u cabbi kartaa oo kuguma daadanayo. Laakiin markii uu gaarigu isbeddelayo xawaarihiisu oo uu dheeraynayo amaba gaabinayo, si caadi ah uma cabbi kartid oo waa uu kugu daadanayaa. Waan gartay, su'aasha imaan karta ayaa waxay tahay, waa adiga diyaaradaha ka hadlayee haddii uu dhulku soconayo, may diyaaraduhu intay iska istaagaan sugaan intuu dhulku soconayo? Ama maxaa keenay in markaan anigu kor u boodo uusan dhulku hoostaydu intaan kor ku maqanahay uga bixin oo uusan u socon? Jawaabta ayaa waxay nagu celinaysaa diyaaradaha iyo gawaarida aan horay uga soo hadlay. Haddii aad diyaarad ku dhex jirtid oo ay hawada marayso oo aad kursigaaga ka kacdid, haddaad kor u boodid ma waxaad ku soo noqonaysaa isla meeshii aad ka booday, mise diyaaradda ayaa ka hoos baxaysa? Ha tijaabin arrintaas si aadan diyaaradda dib ugu geysan. Arrin ka fudud ayaan hayaa. Adoo gaari ama diyaarad ku dhex jira oo xawaarahoodu uusan isbeddelayn, waxaad soo qaadataa kubbad yar oo kor u tuur, ama moobilkaagaba kor u tuur. Kubbaddaas yarta ah talow ma gacantaada ayay ku soo noqonaysaa mise gadaal ayay ku dhacaysaa? Ilaa diyaaraddu aad bay u ordaysaaye. Kubbaddaasi isla gacantaada ayay ku soo noqonaysaa, sababtoo ah kubbaddaasi isla xawaaraha diyaaradda ayay ku socotaa. Markaad kor u tuurtidna waxa ay ku soo noqonaysaa isla gacantaadii. Waxaa sidaasi la mid ah haddii aad adigu kor u boodid, waxaad ku soo noqonaysaa isla meeshii dhulka aad ka booday. Su'aasha kale oo dadka qaybtooda isweydiiyaan ayaa waxay tahay, oo arrintaani maysan diinta ka soo horjeedin, ilaa quraankaba waxaa lagu sheegay inay qorraxdu socoto. Horta waxaa arrintan ka hadli kara culimmada diinta. Intaanan u gudagelin warkoodana, marka hore waa inaad fahantaa qorraxdu inay soconayso, ma diidayso in dhulku soconayo. Oo maanta waxaa la fahansan yahay in qorraxda, dayaxa, meerayaasha, dhulka ay kulligood soconayaan. Culimmada caanka ahayd ee qarnigii hore iyo haddaba noolaana waa ay qirsan yihiin in socoshada dhulka iyo ku wareegiddiisa qorraxda aysan ka hor imaanayn diinta. Su'aasha u dambaysa ayaa waxay tahay, waa maxay maalinta aad tiri cidina ma dhalan, cidina ma dhiman? See bay ku dhici kartaa arrintaas? Jawaabtu waxa weeye khiyaano yar ayaa ku jirta sidaan hadalka u dhigay. Maalmaha aan ka hadlayo waa maalmo aan jirin oo taariikhda ka maqan, tafsiir yarna aan ka bixiyo. Dadku ilaa 10 sano ayay waxay ogaayeen in sanadku qiyaastiisu tahay 365 maalmood. Haddaba sidee ayay ku ogaadeen in sanadku intaas yahay? Jawaabtu waa xidigaha, oo bil kasta xidigaha qaybtood ayaa meelo ka mid ah cirka jooga. Waa waxa ay dadka wax faaliya ee khuraafaadka ku dhaqma ay u dhahaan
qofku bishaas ayuu dhashay marka xidigiisu ama burjigiisu waa heblaayo. Dadkii hore marka xidigaha ayaa u sheegi jiray xilliyada, oo markay xidig hebel arkaan macnaheedu waa in xagaagii oo kale soo dhawaaday. Sanad kadibna isla xidigii ayaa meeshiisii ku soo noqonaya. Marka dadku ilaa 10 sano ayay waxay ogaayeen in sanadka uu qiyaastiisu ku dhowdahay 365 maalmood. Haddaba markii si dhab ah loo ogaaday in sanadku uu yahay 365 maalmood iyo maalin rubuceed, ayaa waxay ku khasbanaadeen inay waqti ku daraan taariikhda. Tusaale ahaan bishii 1752 Ingiriiska iyo mustacmaraadkii hoos imaanayay bishaas 9 waxa ay ka boodeen 11 maalmood. Haddaad fiirisid kaarandarka Maraykanka, Ingiriiska, Kanada iyo dowladihii waagaas Ingiriisku hoos imaanayay, bisha 9 1752 maalinta 1 waa maalin jirta. Maalinta 2 Sebteembarna waa ay jirta. Maxaa ku xiga 2 Sebteembar ee sanadkaas? Maaha 3 Sebteembar ee waa 14 Sebteembar, oo waxaa laga booday 11 maalmood. Wadamada kale oo Yurubna sanado ka sii horeysay ayay ka boodeen 10 beri. Waa waxa keenay in bisha 8aad ay sanad walba xagaa ku beeganto, bisha 1aadna ku beeganto qabowga ama jiilaalka. Waana arrinta kaloo keentay in bisha 2aad 4 sanaba mar laga dhigo inay ku dhammaato 29, maadaama sanadku yahay 365 iyo wax u dhow rubuc maalin. Goortii rubucyadaas la isku darana 4 sano ku noqonaya maalin dhammaystiran. Maalintaas ayaa waxaa lagu daraa bisha 2aad oo inta badan ku dhammaata 28. Arrintaas ayaa iyadu waxay xiriir la leedahay taariikhda miilaadiga oo iyadu qorraxda iyo dhulka meeritaankiisa ku astaysan. Laakiin taariikhda hijriga ayaa iyadu waxa ay ku xiran tahay dayaxa oo qorraxda waxba kama gelin. oo waxa keenay in Ramadaanku mar xagaa galo marna gu ama xilliyada kala gedisan. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.